axmed ibnu ibraahim alkhaasi axmed gurey waxa uu ahaa imaam iyo halgamaa soomaaliyeed kaasoo hoggaamin jiray boqortooyadii cadal. boqortooyadu waxay ka arrimin jirtay geeska afrika gaar ahaan bariga iyo waqooyiga soomaaliya, qaybo ka mida itoobiyada bari iyo dalka jibuuti. xarunteedii ugu weyneed waxa ay ku tiilay agagaarka magaalada harar, halka xarunta ganacsiga iyo dekedaha ay ahayd magaalada saylac. axmed ibnu ibraahim alkhaasi waxa uu ku dhashay qiyaastii sannadkii 1506 magaalo la yidhaahdo hubad oo ka tirsaneyd boqortooyadii cadal. waxa uu ahaa hoggaamiye militari oo caan ka ahaa gobolka, kuna caanbaxay xeeladaha dagaalka iyo hoggaaminta ciidamada. imaam axmed gurey oo soo hoggaamiyey boqortooyadan wuxuu ahaa imaam geesi ah, kaasi oo gacanta ku dhigay badi dhulka geeska afrika, isagoo la dagaalamay boqortooyooyinkii kiristinka ahaa ee itoobiya iyo bortuqiiska, ilaa heer uu gaaray inuu dhulka itoobiya 3 qaybood uu 2 qayb la wareego, isla markaana ay masiixiyiin badan oo itoobiyaan ah ay qaataan diinta islaamka. haddaba muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa soo ifbixii hoggaamiyahan iyo dagaaladii uu ku naafeeyey, duulaanadii xabashida iyo huwantii bortuqiiska, iyo ugu dambayn sidii uu ku shahiiday imaam axmed ibnu ibraahim alkhaasi. ee ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. geeska afrika ka hor qarnigii 16aad wuxuu ahaa gobol hodan ku ah dhaqanno kala jaad ah, ganacsiyo horumarsan iyo bulsho kala aaminsan diimo kala duwan, halka sidoo kalena ay jireen khilaafyo siyaasadeed oo joogto ah. bariga iyo waqooyiga soomaaliya, qaybo ka mida itoobiyada bari iyo jasiiradda jibuuti, waxaa ku fadhiday oo xukumayey boqortooyadii cadal oo ahayd boqortooyo muslim ah, lehna xarumo ganacsi sida dekedda saylac iyo magaalada muhiimka ah ee harar. boqortooyadu waxay lahayd ciidamo xooggan oo khibrad leh, kuna tababaran hub casri ah oo laga keenay boqortooyada cusmaaniyiinta, halka ganacsigooda badeedna uu xoojinayay dhaqaalaha iyo awooddooda militari. dhinaca kale, gudaha itoobiya waxaa xukumi jiray boqor lebna dengel oo hoggaaminayay boqortooyo kiristaanka ortodokiska ah, taasoo ahayd boqortooyo xooggan, laakiin marka loo eego boqortooyadii cadal, dhanka awoodda ka hoosaysay. xiisadaha diimeed iyo siyaasadeed ee u dhexeeyey labada boqortooyo ayaa horseeday weerarro yaryar oo ka dhacay sohdimaha hore ee boqortooyooyinka. xabashidu waxay xadgudub joogto ah ku haysay dhulka soomaalida iyo kan muslimiinta kale ee ka agdhow, waxaana u dhexeeyey dagaallo joogto ah. sannadkii 1517 dagaal culus ayaa dhex maray boqortooyadii cadal iyo itoobiya, gaar ahaan ciidamadii boqortooyadii cadal ee uu hoggaaminayey amiir maxfuud ee ku sugnaa aagga harar. ciidamadii xabashida ayaa burburiyey qasriyadii dagaalka, halka ciidankii bortuqiiska oo xulafo la ahaa ay burburiyeen magaalada saylac. isla wakhtigaas gudaha cadal waxaa ka jiray loolan siyaasadeed, musuqmaasuq iyo burcadnimo, taasoo keentay kacdoon shacab oo uu hoggaaminayey imaam axmed ibnu ibraahim alkhaasi axmed gurey, kaasoo sannadkii 1527 hoggaanka u qabtay boqortooyada. markuu talada la wareegay, axmed gurey wuxuu dejiyey khidad maamul iyo siyaasado adag, wuxuuna soo afjaray kala qaybsanaantii gudaha, wuxuu sare u qaaday dhaqaalaha, sugay amniga, wuxuuna dhisay ciidan xooggan oo ka kooban soomaalida iyo muslimiinta kale ee degganaa cadal. ciidankiisu waxay xoogga saareen difaaca xuduudaha iyo ka hortagga xadgudubyada joogtada ah ee xabashida, kuwaasoo dhib weyn ku hayay dadka soomaaliyeed iyo dhulkii cadal. kadibna waxaa bilowday dagaaladii sannadaha badan socday ee u dhexeeyey boqortooyadii cadal iyo boqortooyadii xabashida, waxaana dhacay xilligaas mid ka mida dagaalkii ugu qaraaraa ee dhex mara labada boqortooyo. ciidankii itoobiya waxay ahaayeen 16,000 oo askari oo fardooley ah iyo in ka badan 200,000 oo ciidanka lugta ah. dagaalkan wuxuu geystay khasaare aad u badan oo labada dhinac ah. ciidankii imaam axmed gurey ayaana ku gacan sarreeyey dagaalka. waxaa la sheegaa in dagaalkaas ay ku shahiideen ku dhowaad 3,000 oo Soomaali ah. ciidankii imaamkana waxaa u suuro gashay inay gaaraan dhulka sheewa oo hadda ah bartamaha itoobiya, waxaana xabashida dagaalkaas kaga dhimatay 3 laab inta ka dhimatay muslimiinta. sannadkii 1531 gurey waxa uu ku guulaystay inuu jibiyo wejigii ugu dambeeyey ee iska caabintii uu waday lebna dengel, boqorkii xabashida, isaga oo sameeyey horumar dheeraad ah. bishii Oktoobar wuxuu galay dhulka Tigreega, isagoo jibiyey ciidamadii dengel ee haray. sannadkii 1533 ciidankii imaamka waxay ka talinayeen guud ahaan dhulkii taariikhiga ahaa ee Amxaarada. xilligaas itoobiya waxaa boqor ka ahaa lebna dengel, wuxuu xilka qabtay 1508 wuxuuna hayay ilaa 1540. wuxuu ku soo koray agoonnimo kadib markii aabbihii boqor nawd lagu dilay dagaal uu la galay boqortooyadii cadal, waxaana xilka soo gaarsiiyey boqorad Elena
oo xilka sii haysay ilaa uu ka gaarayay xilli uu ka hanan karo kursiga boqortooyada. Wuxuu ku soo aaday xilli boqortooyadii Cadal oo dagaal kula jirtay Itoobiya uu hoggaanka u qabtay Imaam Axmed Gurey. Boqorkii Xabashida Lebna Dengal wuxuu xilka hayay muddo 32 sano ah oo inta badan uu ku jiray dhuumaaleysi iyo qaxis daba joog ah kadib markii ay hareereeyeen ciidankii imaamka kagana yimaadeen jiha kasta. Xilligii Lebna Dengal waxaa la sheegaa inuu ahaa xilligii ugu xumaa ee soo maray dalka Itoobiya. Boqortooyadii jirtay muddo ka badan 400 oo sano waxay ku wiiqantay dagaal socday 15 sano oo keliya. Axmed Gurey waxa uu qabsaday 3 meelood 2 meel oo ka mid ah dhulkii Xabashida, waxaana la sheegaa in dadkii xilliga ku noolaa Itoobiya in 10kii qofba 9 ka mid ah ay qaateen diinta Islaamka. Sanadkii 1535 boqorkii Xabashida wuxuu arkay in xaaladda ay ku xun tahay, ciidankiisana wuxuu yaqiinsaday inuusan u babac dhigi karin ciidankii imaamka, wuxuuna gargaar militari weydiistay dowladdii Boortaqiiska, wuxuuna ka codsaday inay soo gaarsiiyaan gurmad degdeg ah si loo badbaadiyo intii ka harsanayd dhulkii Xabashida. Culayskii iyo duulaannadii faraha badnaa ee ciidankii imaamku ay ku hayeen ciidankii Xabashida wuxuu ku qasbay inay waayaan fursad ay dab ku shitaan, waxaana la waayay dad isku imaada oo muddo wada fadhiya iyagoo ka cabsi qabay inay arkaan ciidankii imaamka. Taasina waxay sabab u noqotay inay hilbihii ku cunaan cayriinka halkii ay ka karsan lahaayeen. Arrintan oo ilaa hadda dhaqan ahaan ka jirta Itoobiya waxaa inta badan la sheegaa inay sabab u ahayd cabsida laga qabay Imaam Gurey. Lebna Dengal ayaa geeriyooday sanadkii 1540 isagoo ka baxsanaya ciidamadii Axmed Gurey. Dhimashadiisa kadibna waxaa xukunka la wareegay wiilkiisa oo lagu magacaabi jiray Gilaados. Isla markiiba waxa uu heshiis la galay boqorkii Boortaqiiska si uu uga caawiyo la dagaalanka Axmed Gurey, isagoo ku beddeshay in wadaadiimeedka Boortaqiiska ay soo galaan Itoobiya kuna faafiyaan madhabka Kaatooliga, halka markaa Xabashidu ay haysteen madhabka Ortodokska. Boortaqiiska isaga oo heshiiskan fulinaya waxa uu sanadkii 1541 soo diray ciidan hubaysan oo gaaraya ilaa 400 oo askari kuna hubaysan qoryihii ugu casrisanaa xilliga, waxayna ka soo degeen dekedda Masawac ee dalka Eritrea. Ciidamadii Boortaqiisku waxaa hogaaminayay Christopher Dagama. Waxay si foolka fool ah kula kulmeen Imaam Axmed Gurey bishii Abriil 1542 meesha loo yaqaano Jaartee. Shirkaas ayaana wax natiijo ah keenin, iyadoo Dagama uu ciidankiisa soo abaabulay si uu u weeraro ciidankii imaamka. Imaamka waxa uu carabta ka helay 2,000 oo qori. Boqortooyadii Cusmaaniyiintuna waxay siisay taageero, waxayna u soo dirtay ugu yaraan 900 oo nin oo si wanaagsan u tababaran si ay sare ugu qaadaan darajadiisa. Intaas kadib ciidankii Axmed Gurey iyo isbahaysigii Xabashida iyo Boortaqiiska waxaa dhex maray dagaal aad u qaraar. Axmed Gurey waxa uu suuro gashay isla markiiba inay gaarsiiyaan cadowgooda jab marba marka ku xigta, waxayna ka takhaluseen kala bar ciidankii Boortaqiiska oo uu ku jiro Christopher Dagama. Balse 21kii February 1543 dagaal gaadmo ah oo ay isbahaysigii ay ku soo qaadeen ciidankii imaamka xilli habeen ah bariga harada ugu weyn Itoobiya ee Tana oo hoos tagta gobolka Amxaarada ayuu ku shahiiday Imaam Axmed ibn Ibrahim al-Qaasi Axmed Gurey. Imaam Axmed Gurey waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ah dagaalkii uu la galay Boortaqiiskii doonayay inuu la baxo qabriga nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Boortaqiiska ayaa doonayay inuu qabsado magaalooyinka Maka iyo Madiina, kadibna uu qodo qabriga nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee si uu ugu gorgortamo magaalada Qudus oo ay u arkaan magaalo ay Masiixiyiintu leeyihiin. ciidankii Boortaqiiska ayaa ka soo degay dalka Eritrea si ay halkaa kaga duulaan Sacuudiga oo xilligaa hoos tagayay boqortooyadii Mamaaligta ee fadhigeedu ahaa Masar. Boortaqiiska waxaa dagaal la galay Imaam Axmed Gurey iyo ciidan uu soo diray boqorkii dowladdii Cusmaaniyiinta, halkaa ayaana lagu soo afjaray hammigii Boortaqiista. Imaam Gurey waxa uu taariikhda ku galay inuu ahaa hogaamiye aad u adag oo dagaal adag la galay boqortooyadii hore ee Xabashida iyo taageeraheedii ugu weynaa ee boqortooyadii Boortaqiiska. Imaam Gurey oo muslimiinta dhexdooda looga yaqaano guulaystaha waxa uu ka hor yimid kuwa geesiyaal isku tilmaamay sida Christopher Dagama oo uu dhalay sahmiyihii caanka ahaa ee Boortaqiiska ee Vasco da Gama, kaas oo lagu dilay dagaal uu la galay ciidamadii boqortooyadii Cadal ee uu hogaaminayay Imaam Axmed Gurey. Imaam Axmed Gurey waxa uu ahaa geesi ifiyey guusha iyo gobonnimada, mana istaagin dulmiga Xabashida ay ku hayso dhulka Soomaalida iyo dagaaladii lagula jiray ilaa maanta. Waxaana halkaas ku eg taariikhda hogaamiyihii geesiga ahaa ee Imaam Axmed ibn Ibrahim al-Qaasi Axmed Gurey.